maanta oo ay taariikhdu tahay 10ka bisha Maarso waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee boqortooyada Ingiriiska u fadhiyi doona dalkeena Marwo Kate Foster. danjiraha cusub ayaa ka mahad celisay soo dhaweynta diiran ee shacabka iyo dawladda Soomaaliya ay u muujiyeen, waxayna hoosta ka xariiqday in ay kor u qaadi doonto xidhiidhka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal, gaar ahaan dhinaca amniga, dhaqaalaha iyo kor u qaadidda dimuqraadiyadda. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ka warbixiyay qorshayaasha hirgalay ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay ka xaqiijiyeen dib u dhiska ciidamada, la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa, horumarinta dhaqaalaha iyo dib u heshiisiinta. safiirka cusub ee boqortooyada Ingiriiska Marwo Kate Foster ayaa bogaadisay guulaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka gaadhay dhinacyada dib u habeynta ciidamada iyo dhaqaalaha, iyada oo xustay in boqortooyada Ingiriisku ay kor u qaadi doonto taageerada ay siiyaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed iyo adkeynta xidhiidhka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya labada dawladood. waad mahadsantihiin.